maanta wuxuu qaadayaa anna aan maqlayaa cidina aa maqlaysaan hees macaan danayso adoo lahaa mar baad dacar qooshata kulan warbaahineedkiisana uu ku qabtay halkan waa hoyga ka degay gudaha Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xadhig iyo sidoo kale tacadiyo uu tilmaamay in lagula kacay qaybo ka mid ah shacbiga way ceeriyeysan yihiin mid hadlay mid Facebookga wax ku qoray mid Twitterka wax ku qoray mid wargeys wax ku qoray mid riyooday iyo mid aan weli loo sheegin wixii lagu maayaba intuba jeelkay liinta ka cabayaan maanta waxaa muuqda saansaan caburin iyo dictatoriyad aadan carab allah u naxariistee abwaan reer Somaliland oo ka digayay dictatoriyaddii soo socotay 1969 markii dowladdii militariga qabsatay Soomaaliya isagoo u yaqaanay dowladdii ka horreysayna cawaro wuxuu tix ku yidhi cawaro waa la faalaynayay iyo camaladeedii tani waa carjuuqii dheh iyo jeelka ku cayo ma isu eeg yihiin 69kii iyo maanta siyaasaddu been maaha malaawaal maaha shacabkaaga oo la hagardaameeyo maaha danta dalkaaga iyo ta dadkaaga iyo ta ummaddaada oo laga sarraysiiyo danta shakhsiga maaha waxaa caddaatay in shacabka Somaliland xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye ay khiyaamo ku haasaawinayeen bixinta dekada Berbera iyo sidoo kale madaarka magaalada Berbera ayuu sidoo kale kulan warbaahineedkiisa ku soo qaaday isagoona si weyn u dhaliilay heshiiska maalgelinta DP World waxaa kale aanay xukuumadda kulmiye ka jawaabin sababtay Somaliland uga mid dhigeen xulafo dagaal oo aan golayaasha sharci dejintu ansixin taasoo dalkan u keenaysa inay mudataystaan colaad dagaal oo ay warmaqabto ka yihiin gooniisutaankii Somaliland iyo madax bannaanidiisii dhaqaale iyo dana shakhsi ah heshiisyada dekadda iyo saldhigga Berbera oo dowladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda Somaliland la gashay dowladda Imaaraadka jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash waraysi uu toos u siiyey BBC-da laanta afka Carabiga hadalka dowladda Imaaraadku waa dhab waxa uu ku eedeeyay mas'uuliyiinta xisbiga talada haya kulmiye in shacbiga Somaliland ay khiyaameeyeen isagoona ugu baaqay inay sameeyaan raaligelin iyo sidoo kale saamaxad ay shacbiga ka dalbadaan waxaa jirtay su'aal muwaadin kasta isweydiinayay oo reer Soomaaliya muddadii ugu dambeysay madaxweyne Siilaanyo iyo madaxweyne Muuse Biixi maxay shacbigooda iyo baarlamaankooda uga qarinayaan inay soo bandhigaan heshiisyada ay sheegeen inay la galeen dowladda Imaaraadka cidda dhabta ee saxday waayo heshiisyadan ugu dambeyn waxaa shacbiga reer Somaliland lahaa xukuumadaha kulmiyo u cadeeya oo keena heshiisyada dhabta ahaa wuxuu si gaar ah eedaynta u duldhigay madaxweynaha xilligan Somaliland ka arrimiye Muuse Biixi Cabdi uguna baaqay inuu iscasilo isla markaana xilka baneeyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiye u maleegay shacbiga Somaliland marka hore xogaal buu ka ahaa khiyaamada qaran ee madaxweyne Siilaanyo u geystay dadkiisa iyo dalkiisa wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay khiyaamat al-cudma wuxuu ku kacay khiyaamat al-cudma wuxuu ku kacay khiyaamat al-cudma waxa u bannaan madaxweynaha laba arrimood midkood inuu yaalo inuu iscasilo dadkana saamaxaad weydiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub waxaa kaloo u bannaan
waxaa kaloo u bannaan hadduu taa yeeli waayo in lagu qaado khiyaamo qaran oo lagu sameeyo maamuuska xayuubin. madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayuu sidoo kale kulan warbaahineedkiisa ku dhaliilay isagoona xilligan soo jeediyey in maxkamad la soo taago. Silaanyo wuxuu jebiyey dastuurka, wuxuu khiyaameeyey shacbigii, wuxuu himiladoodii ku riday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro. wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran. shacbiga Soomaaliland ayuu gunaanadkii fariin u diray isagoona mar kale ku celiyey mowqifkooda rasmiga ku aadan heshiiska maalgelinta shirkadda DP World ku samaynaysa marsada Berbera iyo sidoo kale gegida diyaaradaha magaalada Berbera. ugu dambayn ka xisbi ahaan waxaan u caddaynaynaa shacbiga Soomaaliland in madax bannaanida iyo qarannimada Soomaaliland tahay lama taabtaan. waxaan bulshada Soomaaliland ugu baaqayaa in iyagoo mid ah ay meel uga soo wada jeestaan heshiisyada aan xalaasha ahayn ee qarankan u soo hooyey dhaawaca iyo bahdilka aanu galabsan ee loo hadoodilay. waxaan ku celinayaa mowqifka xisbiga ka taagan yahay hore uga taagnaa oo ah inaanu taageeraynin taageersanayna damaca danaysiga ah iyo khiyaamadu ku jirto ee heshiisyadaas. needkiisa uu ku qabtay halkan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa kusoo beegmayay dhow maalintii shalay u ahayd markii mas-uul u hadlay dowladda Imaaraadka uu tilmaamay in heshiiska maalgelinta Berbera ee DP World maamulayso ay dowladda Imaaraadku la gashay dowladdii hore ee Soomaaliya. Faysal Maxamed Aadan Faysal TV-ga caalamiga Soomaaliya.